Masjid Jaamac masjidkani waxa uu ku yaalaa dalka Hindiya waxaana la dhisay sanadii 1685 miilaadiga waxa uuna qaadi karaa tiro dad gaaraya 25,000 oo qof. Masjid Sheikh Zayed masjidkani ayaa laga taagay sanadii 2007 magaalada Abu Dhabi waxaana ku tukan kartaa tiro dad gaaraya 52,000 oo qof. Masjid Badshahi masjidkani ayaa sanadii 1673 miilaadiga laga taagay magaalada Lahore ee dalka Pakistan waxa uuna qaadi karaa tiro dad gaaraya 100,000 oo qof. Masjid Malik Faisal masjidkan ayaa sanadii 1987 laga dhisay magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan waxaana ku tukan kartaa tiro dad gaaraya 300,000 oo qof. Masjid Al-Hasan Al-Thani masjidkan ayaa sanadii 1993 laga dhisay magaalada Darul Bayda ee dalka Morocco waxaana ku tukan kartaa tiro dad gaaraya 105,000 oo ruux. Masjid Al-Istiqlal masjidkan ayaa sanadii 1978 laga dhisay magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia waxaana ku tukan kartaa tiro dad gaaraya 120,000 oo ruux. Masjid Al-Aqsa masjidkan ayaa ah beedka saddexaad ee la xurmeeyay markii laga soo tago Kacbada iyo masjidka Nabi sallallahu alayhi wasallam waxaana ku tukan kartaa masjidkan 250,000 oo qof. Masjid Salah masjidkan ayaa sanadii 2008 laga dhisay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen waxaana ku tukan kartaa tiro dad gaaraya 450,000 oo ruux. Masjid Nabawi masjidkan ayuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam ka dhisay magaalada Madiina taariikhdu markii ahayd 622 miilaadiga waxaana uu masjidkan qaadi karaa tiro dad gaaraya 1 milyan oo qof. masjidka u dambeeya waa Masjidul Haram ama Kacbada masjidkan ayaa dhisay Nabi Ibrahim alayhi salaam lamana oga taariikhda uu dhisay balse waxa uu hadda qaadaa tiro dad gaaraya 4 milyan oo qof. ma sha Allah.